بسم الله والحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله ما أنتو حاربنا إن وحير إسلا فيرنا موضوع labada qof oo lamaanayaasha ah ee isqaba haddii ay nolosha ku heshiin waayaan maaragtay nolosha ku adkaato oo xal ku noqdo in ay nolosha isu faaruqiyaan ama kala tagaan haddii ilmo meesha joogo masiirka ilmaha muxuu noqonayaa ka tarbiya ahaan macquulse ma tahay hooyada iyo aabaha iyagoo kala maqan in ay ilmahooda wada tarbiyaystaan mise suurtagal ma ahanoo ilmihii ama hooyadii baa la dhaqaaqaysa oo looga tegayaa oo mataqaanaa wuxuu noqonayaa ninka ugu wanaagsan inuu ilmihiisa masruuf uun siiyo dadkana ay ku su-aalayaan ninka ilmaha ma kugu beylaa aabahood ilmaha wax ma siiyaa ma arkaysid qofku dhahaya ilmaha aabahood ma kula koriyaa ma kula tarbiyayaa ma u yimaadaa masjidka ma u kaxeeyaa waqti ma la qaataa ma la soo hadlaa ma arkaysid qof kasta wuxuu weydiinayaa hooyada haysta ilmaha ee aabahood kala tageen maxaa la dhahaa ninka ilmaha wax ma kugu siiyaa wax ma kugu taraa biil ma usoo diraa yacni waa su-aalo noocaas anagu ma jirto caqliyad ah in aan maaragtay ka gudubno biil iyo masruuf la cuno laano ilmaha uma korinayno in aan maaragtay jismigiisa bas quudino ilmaha wuxuu rabaa caqliyan inuu u koro wuxuu rabaa maaragtay maskaxiyan inuu ka dhismo wuxuu rabaa caatifiyan ay jaanib inuu ilmaha ka dhismo rabaa ilmaha labada waalid soo saaro waa ilmo qurux badan oo labada waalid markay yihiin laba waalid oo maaragtay ilmaha jaanibka wanaagsan oo tarbiyeynta wanaagsan u wada ilmahaas wuxuu noqonayaa ilmo dhisan marka ilmihii wuxuu u baahan yahay in hooyadii la daala dhacdo la rafaado quturyoomkiisii dharkiisii iskuulkiisii iyo masruufkiisii iyo weliba tarbiyeyntiisii oo tarbiyadii meesha ka baxda laano hooyo dhiban oo maaragtay unuusadeedii ku weyday inay xambaarto oo dusha iska saarto ilaahay subxaana watacaala hawsha ugu talagalay ninka ragga ah hooyadu ma xamili karto qofka dumarka ah hawsha ay banaan kasoo qabanayso waxay ku tahay dhibaato haddii ay noqon wada lagama maarmaan oo duruuf timaado way qabanaysaa laakiin waxay ku tahay dhibaato oo yacni dee looguma talagelin tarbiyeyn iyo maaragtay naxariis iyo jiljilaac iyo deganaan iyo buuq la-aan baa loogu talagalay laakiin haddii stresskii suuqa iyo maaragtay banaanka iyo maaragtay rag loolankiis iyo ee dhibtaa gasho meesha waxaa ka baxaysa inay farxad iyo jacayl ilmihii kusoo celiso ku tarbiyeyso laana waa qof daalan u baahan soo dhacaysa iyadoo daalan marka jacayl iyo tarbiye wanaagsan iyo la sheekeysi iyo waqti la qaadasho way adagtaysa ilmaha u siiso mise ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo aabihiis qaato oo ka xarinma naxariistii hooyada iyo maaragtay la joogii hooyada iyo caatifadii hooyada aabaha ugu fiican ee soomaaliyeed markii ay maaragtay labada waalid kala tagaan waa aabaha ilmaha masruufka siiya laakiin ilmaha inuu aabaha u yimaado way jirtaa wayna dhici kartaa dad wanaagsanna way jiraan laakiin waxaan u baahanahay in ay nagu bataan maadaama ay maaragtay dadka inta wanaagsan baa badan inta wada degan baa badan wax kasta ha ku wada joogaan laakiin ilmaha mar hadduu xayndaabka hooyada iyo aabaha ku jiro wuxuu ka fiican yahay ilmaha maaragtay halka waalid haysto laakiin hadday labada waalid yihiin laba waalid oo wanaagsan ilmahooda way wada korsan karaan hooyadu hadday hooyo wanaagsan tahay waxay isku xiri kartaa oo xiriir wanaagsan ka dhex sameyn kartaa ilmaha iyo aabihiis xitaa aabaha hadduuna ahayn aabe wanaagsan ma loo baahna in hooyada uga sheekayso xumaantii aabaha ku sameeyey aabaha saasuu ii geli jiray reerkooda saas ii geli jireen wuu i dhibaateyn jiray oo ilmaha yarkaa ixbaad iyo niyadjab ku rido aabihiis iyo maaragtay adeeradiis iyo reerkoodana ay u geliso colaad hooyooyinka qaar baa waxay sameeyaan inay ilmaha iyo aabaha isu diidaan kala xarimaan istusi waayaan taasna ma ahan wax mandiqiya oo suurtagal ah ilmahan iyo aabihiis cidna ma kala celin karto intay beri iyagoon isaqoon isheli lahaayeen oo wax maaragtay jacayla ka dhexeynin oo wax ixtiraama ka dhexeynin oo u arkaya aabe xooray ama hooyadiis dhibaateeyey waxa u wanaagsan ilmaha masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa in laga fikiro ilmaha koriimadiisa see ilmaha u wada korsan karnaa okay ani aadi xaqeyna waa kala dhacay waa kala tagnay muddadaa wada noolaan lahayn oo maaragtay ilaahay intaasuu ku qadaray ilmahan yarka ah oo ilaahay naga beeray muxuu u baahan yahay waa in la isweydiiyo ilmaha wuxuu u baahan yahay in la wada korsado ilmaha wuxuu u baahan yahay in maaragtay uu ixtiraam helo inuu jacayl helo inuu caadifadii labada dhinac oo dhammaystiran helo inuu aabihiis qudwo wanaagsan ka dhigto buu u baahan yahay xitaa ilmaha aabihiis hadduu dhinto uu agoon yahay waxaa looga baahan yahay adeeradiis ama awowgii hadduu nool yahay
inuu ilmaha gacanta ku qabto, inuu ilmaha marto, weliba hadduu ilmaha wiil yahay. gabar haday tahay, haddii hooyada hooyo fiican tahay iyada quduu u noqon karta, laakiin ilmaha wiil hadduu yahay xilli waxaa jirta hooyadu ayna wax badan wiilka u sheegi karin, wax badan la qaadan karin. wiilka waxaa rabaa markuu qaangaaro inuu aabihiis la fariisto, inuu wax badan u sheego, inuu wax badan ka dhaadhiciyo, inuu la saaxiibo, inuu kaxeeyo meelaha uu fariisanayo, hadday yihiin dabcan meelo wanaagsan uu u kaxeeyo. lama rabo aabe maqaaxi intuu shaah kasoo cabo ka sheekeynayo oo waqtiga halkaa ku dhuminayo inuu ilmahana kaxeeyo oo siyaasad iyo waxaan dan ugu jirin iyo wax uuna waxba ka qaban karin iyo uu ka hadlo. laakiin waxaa loo baahan yahay majaalista dikriga oo kale, yacni faamilka markay kulmayaan oo kale haddii jirto dhaqamo waxaa jira wanaagsan inaga inagu yar, masalan inay dadka maaragtay faamilka ah oo kale ay jalasaad yeeshaan, in maaragtay xalaqaad diiniya la aado, waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabo inaga dhiman oo u baahan in ilmaha lagu tarbiyey. hadda maxaa heli karnaa marka? masalan ilmaha inuu 5 waqti uu aabaha masaajidka u kaxeeyo, inuu maalinta jimcada waqti la qaato, in ay isla qadeeyaan, in ay hooyadiina ay maaragtay u fududeyso inay ilmaha iyo aabihiis is arki karaan. waxaa jira aabayaal wanaagsan oo ilmahooda maaragtay raba inay si wanaagsan u korsadaan oo biilkii siinaya, laakiin aan khudwo kale u qaadi karin, tallaabo kale oo isugu dhawaadaan because of hooyadii baa waxay ku noqotay xayndaab oranaysa maaragtay aabaha ma wanaagsana, aabahasaas u geli jiray. ilmihii marka aabihiis isagoo og inuu aabihiis yahay ayaa haddana waxaa jira gaab ah, aabaha waa nin xun, hooyadaa buu xumeeyey iyo maaragtay waxyaaba noocaas. marka ilmaha waa in laga wada fikiro maxaa u wanaagsan. haddii xaqiina idinka kala dhacay, ma ahan ilmaha inuu daxiya noqdo, ma ahan ilmaha inuu noqdo maaragtay ilmo laisku laadlaado. waxaa jira hooyooyin iyo aabayaal shaqaysta oo maaragtay ilmihii isu tuurtuura, aabaha or ka doono may hooyada ka doono may, yacni ilmaha waxyaabahaas oo kaleeto niyad jab buu ka qaadaa. waxay ku keenaysaa inuu wuxuuna lahayn qaato, waxay ku keenaysaa inuu damci kala galo, waxay ku keenaysaa inuu cuqdad la noolaado iyo amraad nafsiya inay ku dhacaan. marka ilmaheena aan badbaadsano, ilmaheena aan ka wada shaqeyno sida u korsan lahayn, waan wada korsan karnaa. aabaha iyo hooyada haddii kala tagaan dhib ma ahan, ilmaha meesha jooga, ilmahaasaa u dhexeeya, mana kala go-ayaan. waa inay si wanaagsan oo qurux badan oo ilmahana caafimaad ugu jiro qalbigiisa iyo niyadiisaba ay u wada korsadaan, ay isu yimaadaan, ay wada fariistaan, ay ka wada niqaashaan ilmaha marxaladaasu maraya muxuu u baahan yahay. waa in aan ka weynaano oo ka korno oo maaragtay aan ka gudubno marxalada ah ilmaha in ama hooyada lagu tuuro ama aabaha lagu tuuro, oo maaragtay mid intuu qaato ilmi yarkaa laisku jiijiito. oo wallaahi waxaa arkaysaa aabayaal intay ilmaha qaataan markuu hooyadood u yimaado garaacaya, maxaa hooyada ugu imaatay, maxaa kasoo doontay. bilaahi calaykum, ilmaha yarkaa niyadda yaan laga jibinin, ilmaha yarkaa mustaqbalkiisa yaan lagu ciyaarin. ilmaha yarkaa waa in loo fikira masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa, wuxuuna ku jiraa gacanta labada waalid. ilmihiina jeclaada oo maaragtay dadka wada jooga. xitaa waxaa jira ilmayaal aabayaashood nool yihiin oo hooyooyinkood iyo aabayaashood isla joogaan oo haddana aan agoon waxba dhaamin, oo aan ka dhexeynin ilmihii. yacni aabaha ma ahan inuu u taagnaado guriga inuu biilka bes keeno, inuu maaragtay dictatori noqdo, inuu maaragtay ilmihii xisaabiyo bes, laakiin ilmaha waa inuu jacayl siiyo, waa inuu soo dhaweysto, waa inuu la saaxiibo, maaragtay waa inuu ilmihiisa iyo isaga ee ka dhexeysa xiriir xoog badan oo meel kasta haddii adduunka kala tagaan aan cidna jebin karin jacaylkooda iyo xiriirkooda. ilmihiina jeclaada, soo dhaweysta, maaragtay wareysta, la sheekaysta. xaq waxay u leeyihiin inay helaan jacayl iyo maaragtay qudwo wanaagsan inaan u noqono ilmuhu. ilmaheena waxay naga doonayaan ha naga helaan. weliba simankan waxaa lagu jiraa 7 adag, waxaa lagu jiraa maaragtay 7 ilmihii aadan keligaa tarbiyeyneynin, lagula tarbiyeynayo maaragtay oo aad u dhib badan. waa inaan feejignaano, waa in aan caqligeena iyo maskaxdeena ka shaqaysiino, hawbaa usoo saari karnaa ilmo wanaagsan, maskaxdiisu caafimaad qabto, jirkiisuna caafimaad qabo, waxna dadka kusoo kordhin kara, naftiisana wax tari kara. maaragtay ilaahay subxaana watacaala waa inaan ducaysano. ducadu aad bay noogu yartahay, yacni ama ha noqoto in ilmo loo duceeyo, ama ha noqoto in anaga ducaysano, ama ha noqoto inaan wadankeena u duceyno, ama ha noqoto inaan madaxdeena u duceyno. aad bay ducada noogu yartaa. waa inaan ducaysano, waa inaan ilaahay kaalmeysano, sababtoo ah ilaahay subxaana watacaala hadduuna waxna la qabanin oo na kaalmeynin oo tarbiyada ilmaha nagu kaalmeynin oo la noolaanshaha maaragtay asla noolnaha iyo qoyska maaragtay udubkiisa aad keenin, ilaahay subxaana watacaala haddii uuna nagu kaalmeynin taas runtii waxba nooma suurtagelayaan. waa inaan dhehno ilaahayow, yacni waxaa qaban karo way iska yartahay, maaragtay ilmaha ila tarbiye, ilaahayow dariiqa saxda igula toosi. waa in aan markasta ilaahay cuskano, tala saarsano, arrimaheena u dhiibano, aad ducaysano biidnillaah. khayr baa idin rajeynayaa. hooyo kasta iyo aaba kasta waxaa u dardaarmaya ilmahooda inay jacayl siiyaan, lianno qofku hadduu caadifiyan ka maran yahay waa qof faaruq ah.
waa qof ay u fududahay inuu maarata qof kasta wax ku shuba, waa ay u fududahay inuu qof maarata amraad nafsiya ay ku dhacaan. marka ilmihiina jeclaada, u sheega inay jeceshiin, dadka isla nool idinkuna is jeclaada, kuwa kala tegay oo is ixtiraama, wixii idin dhex maray oo maaragtay dhiba iscafiya, bini aadan baa leeyahay, waa laisku dhacayaa. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.